kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaynu maanta ka hadlaynaa taariikh ku saabsan Ethiopia iyo 5 arrimood oo ay dalalka kale ee adduunka kaga duwan tahay. Muuqaalkan waxaa soo codsaday qaar ka mid ah daawadayaasheena inaan ka soo hadalno. Dalka sanadkiisu uu ka kooban yahay 13 bilood, intaasi oo kaliya maahay jadwalka taariikhda Ethiopia. Waxa uu 7 sanadood iyo 8 bilood ka dambeeya jadwalka reer galbeedka, waxayna ka dhigaysaa in maanta uu yahay jadwalka Ethiopia ama taariikhda Ethiopia ay maanta tahay sanada 2015 oo ay soo marayaan halkaasi. waxay Ethiopia si ka duwan u xisaabisaa sanadka dhalashada. Marka sanadkooda cusubi wuxuu ka bilowdaa 11 Sebtembar ee jadwalka reer galbeedka ama 12 Sebtembar. Dadka ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayaana maalmahan u dabaaldega si ka duwan sida carruurta ku koraysa. Meelaha kale waxa aad u yar baahida loo qabo in dhalinyarada Ethiopia ay bartaan heesaha ku saabsan sanadka si ay u xasuustaan inta maalmood ee bil kasta ku jirta. 12 bilood mid walba waxay leedahay 30 maalmood halka bisha 13aadna ee sanadka ugu dambaysa ay leedahay 5 ama 6 maalmood. Waqtiga ayaa sidoo kale loo tiriyaa si ka duwan ayadoo maalintii loo qaybiyay 2 meelood oo ah 12 saac oo laga bilaabo 12ka taas oo ka dhigaysa 2 duhurnimo iyo saqda dhexe 6 saac ee waqtiga Ethiopia. Wadanka kaliya ee Afrika ku yaala ee aan weligiis la gumaysan. Talyaanigu wuxuu isku dayay inuu ku duulo Ethiopia ama Abyssinia oo ah magacii loo yaqaanay 1895 waa markii quwadaha reer Yurub ay ku kala qaybsameen qaaradda Afrika, balse Talyaaniga ayaa Ethiopia kala kulmay guuldarro bahdilaad ah. Talyaanigu wuxuu ku guuleystay inuu gumaysto dalka deriska la ah Eritrea kadib markii shirkad maraakiib Talyaani ah ay iibisay dekedda Casab ee Badda Cas. Balse dhowr sano kadib markii Talyaanigu isku dayay inuu sii riixo Ethiopia, waxaa lagu jabiyay dagaalkii Adwa. 4 guuto oo ka tirsan ciidamada Talyaaniga ayaa saacado gudahood laga adkaaday 1 Maarso 1896 gaar ahaan Ethiopiankii ka hoos shaqayn jiray boqoradii Menelik. Talyaanigu waxaa la qabsaday inuu saxiixo heshiis lagu aqoonsanayo madax bannaanida Ethiopia, inkasta oo 10 sano kadib hogaamiyihii faashiistaha ahaa ku xadgudbay heshiiskaasi oo uu dalkaas haystay 5 sano. Mid ka mid ah raggii bedelay ayaana waxa uu ka faa'iideystay guushii Talyaaniga isagoo dabada ka riixay bilowga ururka midnimada Afrika ee loo yaqaano OAU oo hadda ah Midowga Afrika, xaruntiisuna tahay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. 3 Rastafariyiinta waxay caabudaan boqor ayaga ay leeyihiin oo ay sheegteen in uu yahay ilaahoodii. Waxaa laga soo xigtay xigasho 1920 timid hogaamiyaha xuquuqda dadka madow ee loo yaqaano Jamaican oo ka dambeeyay dhaqdhaqaaqa Back to Africa. Fiiri Afrika marka boqor madow la caleemo saari doono waayo maalinta samata bixinta waa dhowdahay ayuu yiri. 4 Hoyga sanduuqa xadiga. Dad badan oo Ethiopian ah sanduuqan muqaddaska ah oo ay ku jiraan 10 amar oo Bible-ka sheegay in Allah uu soo dhiibay Muuse ayaanan weli lumin. Kaniisadda ee Ethiopia ayaa sheegtay in sanduuqa si joogto ah loo ilaaliyo ayada oo lagu kaydiyay kaniisadda Marwada Mary Aksum, halkaas oo aan qofna loo ogolayn inuu arko. Midka shanaad ama qodobka shanaad ee Ethiopia adduunka kale kaga duwan tahay waa hoyga muslimiinta ugu horeeya ee meel ka baxsan dhulka Carabta. Haddii aad tagto Abyssinia, waxaad heli doontaa boqor aan u dul qaadan doonin cadaalad darrada. Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa la sheegay inuu sheegay xirtiisa markii uu horeysay ee ay la kulmeen cadaadis qarnigii 7aad ee Maka. Waxay ahayd waqtigii nabigu bilaabay khudbadiisii taas oo noqotay mid aad loo jecel yahay balse oo ay hinjabaad u arkeen hogaamiyaasha aan muslimiinta ahayn. Qaadashada taladiisii koox yar ayaa u kictimay boqortooyada Aksum oo markaasi haysatay inta badan Ethiopia iyo Eritrea, halkaasi oo runtii lagu soo dhaweeyay loona ogolaaday inay ku dhaqmaan diintooda. Tuulada Negash oo ah meesha hadda loo yaqaano Tigray ayaa ah meesha loo malaynayo in tahriibayaashani ay degeen oo ay dhiseen. Waxaa dadka qaar u haysteen inuu yahay masaajidka ugu faca weyn Afrika sanadkii hore. Masaajidka Al-Nagashi ayaa la duqeeyay intii uu socday dagaalkii Tigrayga ee dhawaan dalka Ethiopia ka dhacay. Muuqaalkeena maantana saaxiibayaal waa naga intaa min Nur Official follow inoo dhaha mahadsanidin.